bismillaahi raxmaani raxiim iyadoo laga duulayo sidii loo dardargelin lahaa isla markaana loo horumarin lahaa adeegyada ay bulshada ku dhaqan caasimadda magaalada muqdisho ka sugayaan maamulada degmooyinka gobolka banaadir isla markaana loo xaqiijin lahaa ka dhaweynta qorshaha iyo himilada uu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish uu ka leeyahay caasimadda muqdisho halku dhigna u ah bulsho nabad ah iyo beled nadiif ah waxa uu soo saaray wareegto ku aadan isbedel lagu sameeyay qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka ee number 6 soona baxay 12 bishii 1980 markuu arkay sharciga maamulada degmooyinka iyo gobolada dalka ee nambarkiisu yahay 116 soona baxay 6 bisha 8 2013 markuu arkay sharciga shaqaalaha maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar nambarkiisuna yahay 28 bis ee 21 bishii 1976 soo baxay markuu garwaaqsaday baahida loo qabo dardargelinta iyo horumarinta xag amni nadaafad iyo bilic wuxuu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xilalkii ka qaaday gudoomiyaasha soo socda gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Maxamed Maxamuud Abshir Kaaraan waxaa laga qaaday xilkii gudoomiyenimo waxaana kusimaha gudoomiyaha degmada Kaaraan si ahaan doona inta laga soo magacaabayo gudoomiye cusub mudane Deeq Xasan Shiiqow oo hadda ah gudoomiye ku-xigeenka degmada ee dhanka amniga waxaa xilkii laga qaaday gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir waxaana kusimaha gudoomiyaha degmada Xamarweyne si ahaan doona inta laga soo magacaabayo gudoomiye cusub mudane Maxamed Axmed Iidow oo hadda ah gudoomiye ku-xigeenka degmada ee dhanka amniga iyo siyaasadda waxaa sidoo kale xilkii gudoomiyenimo laga qaaday gudoomiyaha degmada Waaberi Cabdicasiis Cusmaan Jaamac waxaana kusimaha gudoomiyaha degmada Waaberi si ahaan doona inta laga soo magacaabayo gudoomiye cusub mudane Jamaal Cali Maxamed oo hadda ah gudoomiye ku-xigeenka degmada ee dhanka amniga iyo siyaasadda waxaa sidoo kale xilkii gudoomiyenimo laga qaaday gudoomiyaha degmada Hiliwaa Cabdixakiin Cumar Cabdulle waxaana gudoomiyaha cusub ee degmada Hiliwaa loo magacaabay mudane Mire Salaad Dhuxulow waxaan u rajaynayaa gudoomiyaha cusub iyo kusimayaasha inay sii dardargeliyaan howlaha shaqo ee loo haya shacabka ku dhaqan gobolka banaadir ee caasimadda magaalada muqdisho